kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada channelka wararka Soomaalida waa 25 bisha shanaad sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah faahfaahin laga helayo howlgal qasaare geystay oo xalay ka dhacay Muqdisho iyo sida ay tahay xaalka magaalada Muqdisho saakay wafdiga Somaliland ee Nairobi oo wajigabax kala kulmay safiirada dalal dhowr ah iyo natiijo la'aan ka dhalatay kulamadii Nairobi maamulka galmudug oo abaalmarintii ugu qaalisneed abid u soo bandhigtay askarigii fashiliyay qaraxii degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud madaxweyne Farmaajo oo baabi'iyay go'aan xukuumadda Sheekh Shariif dal madax bannaan ugu aqoonsatay mid ka mid ah dalalka qaaradda Yurub kadib cadaadis la saaray qaabka loo soo xulay xildhibaanada cusub ee Jubbaland oo la shaaciyay iyo militariga Suudaan oo taageeray Sacuudiga fadlan subscribe saar channelkan haddii aad nagu cusub tahay sidoo kale qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararka xiisaha leh aynu halkan soo gelino qaybta hoosena aragtidaada noogu reeb markana ku soo dhawaada warkii oo fidsan faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa howlgal qasaare geystay oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay howlgal ka fuliyeen rugta qudaarta oo ku taala waaxda Taleex ee degmada Hodan kadib markii shacabka ay ku soo wargeliyeen in laba nin oo burcad ah oo hubeysan goobtaasi shacabka ay ku dhacayaan booliiska waxa ay sheegeen in mid ka mid ah burcadii goobta lagu toogtay halka kuwa kalena ay baxsadeen waxaa howlgalka ku dhaawacmay sargaalkii booliiska rugta xukumayay sidoo kalena waxaa ku dhintay hal qof shacab sida ay sheegtay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Sagiye Xuseen Axmed oo warbaahinta la hadashay dhanka kale waxay ciidamada booliiska gacanta ku soo dhigeen askari booliis oo shalay dad shacab ku dhaawacay degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir xaaladda saaki ayaa ah mid degan goobihii xalay ay howlgalka ka fuliyeen ciidamada dawladda waxaana lagu arkayaa ciidamo hubeysan oo halkaasi gaafureegaya sidoo kale dadka shacabka ayaa dareemaya nafis ah in kooxihii burcadda ee dhaca u geysanayay markan ciidamadu ay markaasi baritaarayeen dhinaca kalena wafdigii Somaliland ee Nairobi ku sugnaa oo wajigabax kala kulmay safiirada dalal dhowr ah iyadoo natiijo la'aan ay ku soo dhamaadeen kulamadii magaaladaasi ay ku lahaayeen waxaa dhawaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya safar ku tagay wafdi ballaaran oo ka socday Somaliland kuwaas oo halkaasi ku yeeshay kulamo kala duwan wafdigan ayaa waxa ay ka koobnaayeen labada xisbi ee Kulmiye iyo Ucid oo ay kala hogaaminayeen wasiir Maxamed Kaahin iyo injineer Faysal Cali Waraabe mas'uuliyiinta wafdiga reer Somaliland ayaa waxay kulan la yeesheen safiirada dalalka Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyaga oo warbixino ku aadan doorashooyinkana siiyay safiiradaasi xoga aan ka helnay kulankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in safiirada dalalka Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka ay ka muujiyeen walaac arrimahaasi iyadoo si cadna uga horyimid inay gacan ka geystaan doorasho aysan u dhameen xisbiyada Somaliland safiiradan ayaa wali ka biidiidan yihiin in xal waara laga gaarin khilaafka xisbiyada ee ku aadan doorashooyinka oo xisbiga wadani uu meel adag iska taagay wafdigan ka socday Somaliland ay ka koobnaa xisbiyada Kulmiye iyo Ucid iyaga iyo dhankoodana ku adkeysanaya inay doorashada qabsoomi karto xisbiyada wadani oo ka maqan ayaa waxay safiiradan u sheegeen inaysan dhicin doorasho aysan u dhameen xisbiyadu oo wali aysan wax taakula ah ka geysanaynin gudoomiyaha xisbiga Ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa dhowr jeer gudoomiye cir ku eedeeyay inaanu diyaar u ahayn in Somaliland ay doorasho ka dhacdo waxaa iyagana hore ugu eedeeyay in xukuumadii biixi ka gaabisay in doorasho qabsoonto gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf kaasi oo ku baaqay in madaxweyne Muuse Biixi uu doorkiisa hogaamineed ka qaato dardargelinta qabsoomida doorashooyinka gudoomiye Anwar ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in guddiga doorashooyinka Somaliland ay iscasilaan taasi oo xal u noqon karta aqbalada doorasho ee xisbiga wadani sidoo kale gudoomiyaha ku meel gaarka ee wadani Cabdiqaadir Jirde ayaa isaguna hore u sheegay in xukuumadda Muuse Biixi ay safiirkii UK ee Hargeysa yimid ay siisay war been ah oo ku aadan in la dhameeyay khilaafkii doorashada si kastaba gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cira ayaa isagu ka digay in xukuumadda Somaliland ay isku daydo inay qabato doorasho aan ku jirin xisbiga wadani isagoona ku hanjabay haddii ay qabato in taageerayaasha wadani ay iyaguna doorasho qabsan doonaan maamulka galmudug ayaa abaalmarintii ugu qaalisneed abid u soo bandhigay askarigii fashiliyay ruuxii isa soo miidaamiyay ee doonayay in dadka uu ku laayo degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud
wasiirka warfaafinta maamulka Galmudug Maxamuud Xasan Masagway ayaa sheegay in maamulka Galmudug ay isku diyaarinayaan inay abaalmariyaan askarigii shalay fashiliyay qaraxii la doonayay in lagu laayo dad shacab ah. Waxa uu sheegay madaxweynaha Galmudug uu ballan qaaday in si degdeg ah askarigaasi loo abaalmarin doono isla markaana uu kaga mahad celinayo siday shacabkooda u badbaadiyeen. Wasiirka ayaa tilmaamay in weli ay socdaan howlgallo culus oo lagu baadigoobayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan xaafadaha degmada Guraceel. Ciidanka ayuu sheegay inay qabteen ku dhawaad 5 ruux oo lagu tuhmayo falkii shalay ka dhacay Guraceel ee shacabka lagu leyn rabay. Askari kamid ah ilaalada madaxa xukuumadda Galmudug ayaa shalay isku duubay ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo doonaya inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay degmada Guraceel. geesta kalena madaxweyne Farmaajo ayaa baabi'iyay go'aan xukuumadda Sheekh Shariif dal madax bannaan ay ugu aqoonsatay mid ka mid ah dalalka qaaradda Yurub kadib cadaadis la saaray. Iveka Desik, ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalka Serbia ayaa 22 bishan magaalada Muqdisho ku yimid safar aan la shaacin sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi Serbia. Kulan ayaa magaalada Muqdisho ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo, wasiir Caawad, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Serbia, waxaana kulankaasi looga hadlay sidii Soomaaliya ay uga laaban lahayd go'aankii xukuumadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay dal madax bannaan ugu aqoonsatay dalka Kosovo sanadkii 2010. Madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay Ivek Desik, ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda dalka Serbia, in Soomaaliya aysan marnaba taageeri doonin dhaqdhaqaaq kasta oo ku saabsan gooni isu taag iyo aqoonsi raadis ka hor imaanaya xeerka caalamiga, isla markaana dib u eegis ay ku sameyn doonaan aqoonsigii Soomaaliya ay siisay Kosovo. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd 69 dal oo dal madax bannaan u aqoonsaday Kosovo sanadkii 2010, waxaana xiriir wanaagsan yeeshay Kosovo iyo Soomaaliya. Kosovo ayaa ka go'day dowladda Serbia waxaana ay ku taala koonfurta bari ee qaaradda Yurub. Kosovo dadka ku nool 90% waa muslimiin, waxaana ay taageerada ugu badan siisay dalalka Islaamka oo u codeeyay inay noqoto dal madax bannaan. sidoo kalena qaabka loo soo xulay xildhibaanada cusub ee Jubbaland oo la shaaciyay. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada Jubbooyinka iyo guddiga doorashooyinka Jubbaland ee uu magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isku raacay qaabka loo soo xulayo xildhibaanada cusub ee Jubbaland. kulan ku dhexmaray magaalada Kismaayo ayaa looga dooday qaabka loo soo xulayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland ee dooran doona madaxweynaha cusub ee maamulkaasi. waxaa la isku afgartay qorshe ay guddiga doorashada Jubbaland ku meel mariyeen hanaanka loo marayo doorashada xildhibaanada oo ah in beel kasta oo leh hal xildhibaan ay guddiga doorashada u soo gudbiso 3 xubnood si ay midkood ugu soo xulaan. odayaasha ayaa sheegay in ciddii cabasho qabta ay timaado Jubbaland isla markaana ay ka qayb noqoto geedi socodka doorashooyinka Jubbaland. ugu dambeyntii militariga Suudaan ayaa taageeray Sacuudiga. ciidanka militariga dalka Suudaan ayaa shaaciyay inay taageeri doonaan dalalka Sacuudiga haddii ay Qatar ka timaado dalka Iiraan oo ay Sacuudiga hadda ku xafiltamayaan siyaasadda bariga dhexe. kadib kulan magaalada Riyadh uu kula yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayuu Generaal Maxamed Hamdan Dagaalo oo ah ku-xigeenka taliska militariga ee talada Suudaan haya sheegay in Suudaan ay isgarab taagi doonto Sacuudi Arabia haddii ay weeraro ama Qatar kaga soo wajahaan Iiraan ama maleeshiyaadka Xuutiyiinta. waxa uu ballan qaaday in ciidanka militariga Suudaan uu ka sii qayb ahaan doono dagaalka isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ka wadaan Yemen, kaas oo ay ku rabaan inay xididada uga siibaan maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka hela Iiraan. waa markii ugu horeysay oo ay ka hadlaan siyaasadooda dibadda tan iyo markii ay xukunka ka tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi Generaal Umar al-Bashir bishaynu ka soo gudubnay. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka furo si wararkii ugu dambeeyay ee xiisaha leh isla markaana degdeg ah ee halkan soo gelin ay ku soo gaaraan. qaybta hoosena aragtidaada noogu reeb, waana mahadsantiin.